waxaynu wax yar ka oran lahayn dhismaha Kaabada iyo taariikhdeedii marka hore fadligeeda Quraanka Ilaahay wuxuu ku tilmaamay Kaabadaas oo halkaynu u tukanayna ee salaadu la'aanteeda aanay ansaxaynin ilaa loo tukado xaggeeda loo jeedsado caalamka meel walba la joogana looga soo jahaysanayo fadaa'ilkeeda waxa kamid ah inuu Ilaahay ka dhigay gurigii ugu horeeyay ee alla daraadii looga dhisay caalamka in awwala baytin وضع للناس للذي ببكة مبارك مرات القرآن كعدي يقول يقول ويها وأفضلية أي أسبقية أي قيمة إلا هذا وحى لسي ملائكة إلهي يا أنبياء إلهي وسينو حسي الدورنا عدي يقول رسالة لسي وملائكة تبع أقواش قاركود لا لكن وحى الله با وهل كان ينكوها إن أنبياء إلهي نبي إبراهيم يا نبي إسماعيل إن أساسين إن قابها هنا تاريخ ذا روح قصة جانا قعد نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم اسمه دين وكقيبها كعبة شرفت هذا يقيمه هذا روح كم ذا علماء الله روح يكون بيجنت هاي بيت المعبور كوري جم ملاك تورا ما يمر يعني سمدا كوي الله ويجانا كعبة وقدر جان أيها وكتو سيء شرفت دينتين وأويا شيء وحد دليلها سيعتين يا إنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم حديث كي صحيحها مركو قفكو حياة شق ودنيو إن أنا حق قبلة أوتسي سنين تبدنا أوتسي هذين هذو طبعا اختيار ليه قدام مال بنان وكنت كنيو وحعاض الصغان أنبياء إلهين يكسوا حج شيرين كنسي حج دونا إلى النبي محمد الماضي عليه الصلاة والسلام عيسى بن مريم اللفتيس إنه كو سو حجي دونا أو كو سو عمريسان دونا waxyaabaha badan oo wixii wanaagsan oo dhan ah waa loola jeedsadaa sida midna qofku markuu quraanka akhriyayo ducaysanayo weesaysanayo wixii khayr la wado dhan fadaa'ilkeeda ay kamid tahay inuu Ilaahay ilaaliyo subhanahu wa ta'ala oo meelaha la guumaysta aanay ku jirin waxa jira cibaadooyin u baahan ansixidoodu in Kaabada uu la qaabilo waxa kamid ah salaadihii aynu tukanayna inaynu Kaabada ula jeesano xaaladii aynu ka soo warranay ee كلف كجري مويانه waxa kamida qofka hadii la aaso in jinaasadii loo jeediyo Kaabada xoolaha marka la gowracayo markuu qofku dawaafayo markuu saciga la imanayo xaaladahaas oo dhan inuu Kaabada qaabilo waxay tahay waxyaabaha islaamku uu sugay waajibka ah intooda badan waa waajib Kaabada marka inuu soo noqono magacyadeeda magacyo dhowr ay leedahay waxa kamida al-Kaaba ستا إلهي قرآنك وكو عدي هديا بالغ الكعبة حولها وإلا قارسيا كعبة وهدي قاريا كعبة الكاس حرم كالوسو قورعيا البيت المبارك للذي ببكة مبارك إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا مركب بيت بالا هذا أما البيت المبارك بيت الله نوال إله وإن قال أركينا وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن ظهر بيتي بيتك إلهي وي البيت العتيق نوال إله ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق وبيت كي عدوغا لقبت بادية أما قديم كما هذا اسمه القبلة نوال إله فلنولينك قبلة ترضاها البيت المحرم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم قاعدي سيكم التهي waxa aynu soo gudbi lahayn dhismaha Kaabada inta la ogsoon yahay ilaa 12 jeer ayaa la xusaa Kaabada dhismaheeda 12 ka shan kamida waa la isku waafaqsan yahay waxa la isku khilaafsan yahay 7 kamida shanta la isku waafaqsan yahay mid waa taynu halkan ku hayno suuratul baqara ilaahay halkan uu inoogu cadeeyeen dhismaheeda ay wadaageen ay bilaabayeen seeskaba ka bilaabayeen nabi ibraahim iyo inankiisa ismaaciil nabi ibraahimna wastaadku ahaa ismaaciilna kii saaciidaya kuuriga ahaa ayuu ahaa mid labaad la isla waafaqsan yahay waxa weeye quraysh dib bay u dhistay Kaabada nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam intii aan la soo dirin 5 sano ka hor qabla al-bi'thati bi 5 sanawaat 5 sano ka hor waxay ka soo gaabsadeen dhismihii nabi ibraahim marka inta yar imika gaabana deyrka ah
ayay ka soo jareen oo yidhaahdeen ma wada dhisi karayno wax xalaashaan inoo gaadhay nimankaasi xaaraanta way iska cunayaan laakiin waxay ku leeyihiin beydka ku dhisi mayno dadka qaarkood baa imika innaga waxay idhaahdaan waxayga ma ka xaji karaa iyo sadaqa ma ka bixin karaa iyo hadda waanu cunayaa marka waa falsafadii la qalloocan almuhim nebi maxamed baa la dhisay calayhi salaatu wasalaam khilaaf dhexdooda ka dhacay saa taariikhda ku arki doonto ayaa isagu uu xalliyayoo isagaaba xal u noqdayoo waa kii go-a intuu yidhi hareeraha qabta isagu saaro dhismaha markaa qayb buu ka aha rasuulku sala allahu calayhi wasalam waktiga labaadee laysla waafaqsanyay buu ahaa waktiga saddexaadee laysla waafaqsanyay waa dhismihii uu sameeyey cabdullaahi bnu zubayr radia allaahu canh waktigii uu xarameynka ka madaxda ahaa ayuu isaguna intuu dumiyey ayuu u dhisay siduu nebi maxamed doonay nebi maxamed baa wuxuu yihi haddii aanan ka baqaynin quraysh inay didaan ama diin la-aan ku dhacaan ama gaalnimo u baxaan markuu caaisho la hadlayay dhismihii nebi ibraahim baan ku celin lahaa dayrkaa yarna waan ku dari lahaa laba albaabana waan u samayn lahaa intii buu isaguna sameeyey xajaaj binu yuusuf baa ka daba yimidoo isaguna markaasuu intii ka bedelay oo sidii quraysh buu ku celiyey dayrkii yaraana gaar buu soo jaray albaabkii galbeedna wuu xidhay sidii quraysh buu dib ugu celiyey halkaas waa afar baan filayaa marka shanaadee laisla waafaqsanya waxa weeye taariikhda islaamku markay ahayd hijrigu 1040 macnaa 1040 oo imika aynu ka joogno 400 oo sano ayaa waxaa dhisay nin la odhan jiray asultaan muraad oo ka mid ahaa dowladdii cuhmaaniyiinta kacbada wax badan oo duufaano iyo daadad iyo dabayle iyo waxbaa ku dhufto markaa qaybo badan baa dumay ninkaasina niman dhismaha aada u yaqaanu masar ka keenay iyo dhagax wanaagsan iyo qoryo wanaagsan iyo waxbuu ku sameeyo dib u habeyn aada u fiican ayuu ku sameeyey waana dhismaha ay hadda ku taagan tahay mar waloo la dhisana waxaa loo sii dheeraynaya kor dhismuhu kor buu had iyo jeer u sii soconaya macnaa xagga dherarkiisa baan ka hadlaya waxaa imika wax ku yaro kordhiyo yaro hagaajiyey dowladda sacuudiga ama ninka ugu weyne wuxuu ahaa un boqor fahad ayaa xooga albaabkan dahabka ah ee kacbada iyo inahaasuu ka isaguna ku yaro kordhiyey markaa shantaa hore ismaha nebi ibraahim iyo kaa nebigu quraysh la sameeyey cabdillaahi ibnu zubayr xajaaj ibnu yuusuf iyo suldaan muraad shantaasaa la isku waafaqsan yahay toddobada la isku khilaafsan yahay waxa weeyaan waxaa dhisay baa la leeyahy malaa'igta nebi aadam iyo nebi shiif oo saddexdaba nebi ibraahim ka horreeyeen saddexa dhismaba iyo nimankii camaaliqada ahaa waaweynaa eriyada mar deganaa qoladii uu xididka la ahaa nebi ismaaciile reer jurhum lo odhan jiray qolo reer khusaaca lo odhan jiray odaygii quraysh laftiisa qusay ibnu kilaab quraysh alakbar lo odhan jiray toddobadaa jeerna waa la isku khilaafsan yahay oo xagga daliil ahaan baanay daliil la cuskadoo sugan ayaanay lahayn almuhim waa goob aad iyo aada u qaaliya marar badan waa lasoo weeraray xagga taariikhda kacbada haddii aada akhrido oo maaragtay muqadasaadka iyo kutubta ka warrama haddii aada akhrido shiicadaa mar ku soo duulay marar badan nasaaradaa ku soo duulay mar walba ilaahay baa badbaadinaya subxaana wa tacaala waqti uma hayno inaha in la eg ayaynu ka xusi karnaa maadaama dhismaheedii aynu taaganahay dhismaha iyo wixii markaa inaga khuseeya maalmo dhoweyd ninka meesha boqorka yarka ka ah waa kii dhakada uga baxay dadku aad bay uga hadleen social mediaha iyo meelahan hadalka la isku gaadhsiiyo miyay bannaan tahay mise ma bannaana markaa wax wuxu dhimaya xagga maaragtay kacbada iyo ma aha haddii dusheeda la fuulo xaaraan ma aha xagga sharciga waayo kutubta fuqahada waxaad ku arkaysaa qofku hadduu kacbada dusheeda ku tukado salaadu ma ka ansaxaysa kacbada gudaheeda hadduu ku tukada ma ka ansaxaysaa xaguuse qaabilaya hadduu kacbada ku tukado kutubu shaaficiya waad ka arki karaysaa dusheeda hadduu ku tukado haddii gidaar yari uu ka sarreeyo wuu ku tukan karaabaa markaa ay xusayaan